kusoo dhawaada channelka Engineer Maxamed Ibrahim Cumar. Channelka waa channel cusub. Haddii uu yahay markii koowaad ee aad daawato channelkani, fadlan subscribe, share, like intaba dhag noogu sii. Intaasi waa codsi. Okay, aan u guda galno. Maanta waxaan ka hadli doonaa Abdullaahi idmo xoogaa exercise ah ayaan rabnaa inaan xalino. Exercise-ka wuxuu leeyahay change into present continuous tense. Jumladani ee ku qoran tenniskana ku qoran u bedel tenniska koowaad ee aan soo qaadanay ee ah present continuous tense. Horta tennisida noo qoran waa tenniska labaad ee ah simple present tense. Haddii alla idmo aan rabno inaan baranno ama aan u socono baritaankiisa ama wuxuu yahay aan ka sheekay doono. Balse hadda waxaan u soo qaadanay in aan ku bedelno tenniska aan soo fahnay aan soo baranay ee ah present continuous tense. Tenniska aan soo baranay ee aan ka soo hadalnay wuxuu ka hadlayay fal hadda dhacayo oo faraha lagu hayo oo ka hadlaya Soomaa. Tenniskan wuxuu ka hadlaa wax maalin kasta dhaco, laakiin waan gaari doonaa hadda ma rabo inaan faahfaahiyo. Waan gaari doonaa Abdullaahi idmo, balse hadda waxaan soo qaadanay example-diisa aan soo qaadanay. Muhiimadda aan example-diisa u soo qaadanay waxay tahay in aan ku bedelno example-ladan inaan ku bedelno example-ka koowaad ee tenniska koowaad ee ah present continuous tense inaan ku bedelno Abdullaahi idmo. Okay. Exercise koowaad wuxuu leeyahay she makes the food every day. She ayadu makes waxay sameysaa the food cuntada every day maalin kasta. Iyadu waxay sameysaa maalin kasta cuntada. Marka maadaama intaan Englishka aan fiirin af Soomaaliga waxaan rabnaa inaan af Soomaaliga waxa weeye waxaan lahay iyadu waxay sameysaa cuntada maalin kasta. Aniga tenniskan ama Soomaaliya micnihiisu ma soo arkin. Waa u soconaa. Maxaa u bedelinaa marka waxaan rabnaa inaan ka dhigno fal hadda dhacayo oo faraha lagu hayo. Kan wuxuu ahaa example-kan wuxuu ahaa fal dhaca maalin kasta. Anigana aan rabno inaan u bedelno fal hadda dhacayo oo faraha lagu hayo oo xaadir ah and present ah. Okay, marka waxaan dhahnaa she waa subject, make maxay tahay waa verb-kii. Laakiin maxaa nagu soo kordhay s aan nagu soo kordhay bis s aan nagu soo kordhay. S-na waxaa iskale tenniska aan u socono hadduu Ilaahay ka karaal noqdo aa iskale the food every day aan online. Marka sidee u bedelinaa marka anagoo og qaacidada oo ku shaqeeyo tenniska koowaad ee ah present continuous tense. Ila qaacidada oo tenniska koowaad ku shaqeeyo waxay ahayd subject plus am is plus r plus v plus ing plus object. Hadduu subject yimaado c saddex midkood am c am rc am sc see loo siiyaa mid kasta subject uu ku habboon yahay c macna. Hadduu singular yahay auxiliary singular ku shaqeeyay. Hadduu plural oo am jamac yahay plural ama jamac auxiliary oo ku shaqeeyay. Okay, subject yana she ano ah maxaa dhigana marka isa keena sababta isu keen maxaa waay isu waxa uu keena subject meesha yaalo aan fiirinayna simply marka tenniska labaad ama tennis oo ani tennis uu noqdo oo loo u bedel tennis koowaad ee present continuous tennis u bedel markii loo dhaho waa inaa fiirisaa subject meesha yaalo muxuu yahay ma jamac miya ma singular muxuu yahay. Adigo intaas aan subject-ga aan fiirin wax bedelin ila qasab ay kugu tahay. Waxaa rabtaa auxiliary inaad ku soo kordhisaarto auxiliary aad siisid. Auxiliary oo siinay marka laga yaabo meel singular ah ina auxiliary r aad siisid ee ka qaldantaa marka. Laakiin ka hor intaan la siinin fiiri subject meesha yaalo yuu yahay muxuu yahay ma plural ma singular yuu yahay fiiri dan kadib sii marka auxiliary uu ku habboon yahay. Okay, hadda marka waxaan leenahay she subject waxaa noo tahay she yata waa singular iyada laga hadlo Soomaa hal qof kaliya. Maxaa marka is aan siinaa marka maxaa marka she is makes another marka verb. Ana maxaa soo baranaa hadduu verb imaado ku dar ing. Maxaa marka she is making the food every day. Maxaa ku bedela adverb of time maxaa ku bedela tennis koowaad maxaa ku aqoon adverb of time kiisa now. Maxaa marka she is making the food now. Maxaa Soomaaliga iyadu waxay sameynaysaa cuntada hadda. Asal hore maxay iyadu waxay sameysaa cuntada maalin kasta. Maxaa u bedel marka iyadu waxay sameynaysaa cuntada hadda. Englishka fiir maxaa asal hore she makes the food every day. Maxaa u bedelay she is making the food now. Example-kaas waxaan fahmaa inaan fahmay qaabka isku bedelay inaan fahmay rajina. Aan u gudub midka labaad. Midka labaad wuxuu leeyahay he takes the car. He isagu takes wuxuu qaataa the car gaariga. Tenniska waa tenniska labaad aan u socono waa isagu wuxuu qaataa gaariga markasta waa laakiin adverb of time maxaa waa laga reebay. U bedel marka tenniska waa present continuous tense bedel maxaa dhahaa he takes the car on hotel. Maxaa marka he fiiri
هي meesha soo ma auxiliary maxaa wadhiga marka maxaan fiirinaa subject meesha inuu yaal muxuu yahay subject meesha inuu yaal muxuu yahay he maxaa waay singular waa isaga hal qof keliya soo ma maxaa siinaa marka is aa siinaa marka maxaa dhaha marka he is takes anoo tala marka verbka maxaa tuurinaa estaan tuurinaa maxaa ku bedelinaa ing oo maxaa leenahay he is taking the car micnoona marka isagu wuxuu qaadanoyaa gaariga asalka hore maxayd isaga wuxuu qaataa gaariga fiir marka taas inaa fahamtid aa lagaa rabaa okay next mid kale aan aadno waxaanoo qoran my mother hooyadeeda looks for waxay raadisaa her children cunugeeday raadisaa goormay raadisaa mar kastay raadisaa hooyada cunugeeda okay tenniska marka tenniska labaad aan u socono waa inaan barano okay aan ka dhigno tenniska hadda ku jirno aan soo fahnay aan soo barno aan bedelo maxaa leenahay anagoo ingiriiska aan bedelo af soomaali aan bedelo waxay ahayd hooyaday waxay raadisaa cunugeeda aan ka dhigno tenniska hadda aan soo fahnay aan ka dhigno maxaa leenahay hooyaday waxay raadinaysaa cunugeeda waxaa aragtay hooyada oo mar kasta socoto qofaa wuxuu ku dhahay hooyadaada mar kasta way socotaa maxaa waaye maxaa leedahay markaas hooyaday waxay raadisaa cunugeeda arag fiiri muxuu ah tenniska labaad tenniska waad u fiir hadan hooyadaa socota qof arki wuxuu ku dhahay hooyadaa way soconaysaa markaas adaa soo bood waxaan dhahday hooyaday waxay raadinaysaa cunugeeda fiiri af soomaali xataa waa isleeyahay waa wax fudud easily waa tennisyada laakiin iyo easily qofka mar kasta practice easy yahay okay ingiriiska aan galna marka macnaha marka my mother maxay tahay marka waa subject oo ah noun waa magaca la jooga maxaa la siinaa noun ka xataa waxaa loo fiiriyaa hadduu plural yahay are la siiyaa hadduu singular yahayna isaa la siiyaa my mother maxay tahay marka she u dhigmataa my mother singular marka she u dhigmataa macnaha marka my mother is looks maxaa ku sameynaa estatura maxaa ku bedelaa ing macnaha my mother is looking for her children hooyaday waxay raadinaysaa cunugeeda ku celi mar kale maxaan dhahay my mother is looking for her children okay waan fahnaa filaa asalka hore muxuu ahaa my mother looks for her children waa soo maa hooyaday waxay raadisaa cunugeeda iyo hooyaday waxay raadinaysaa cunugeeda maasha allah next day marka kan kale wuxuu leeyahay the teacher explains the lessons macalinka wuxuu sharaxaa casharada tenniska labaad aan rabno inaan fahanno waa okay af soomaali oo tenniska hadda aan ku jirno oo bedelno maxaa leenahay macalinku asalku wuxuu ahaa macalinka wuxuu sharaxaa casharada aan ka dhigno tenniska koowaad ee aan ku jirno maxaa leenahay macalinka wuxuu sharxoyaa casharada fiiri macalinka wuxuu sharxoyaa casharada asalka muxuu ah macalinka wuxuu sharaxaa casharada okay marka english aan bedelo marka english wuxuu ahaa the teacher explains the lessons judge into praise continue aan bedelo tennis kuwaad aan ku jirno aan soo fahanay aan bedelo maxaa leenahay the teacher maxaa marka noun marka subject u ah noun waa maxaa la siinaa marka isaa la siinaa u dhigmaa he u dhigmaa marka isaa la siinaa marka iska fiiri noun waxaa jira oo singular ah iyo noun waxaa jira oo plural ah teacher maxaa waaye singular oo noun waa teachers maxaa waaye plural oo noun waa teachers doonka maxaa leenahay arasiin laakiin muxuu yahay teacher hal macallin keli waa he u dhigmaa maxaa siinaa marka auxiliaries maxaa noqonaa isoo noqonaa maxaa leenahay marka the teacher is explains ataalo maxaa la tuuraa esa tuur tenniska labaad waa taas iska tuur maxaa ku bedelaa ing maxaa marka the teacher is explaining the lessons maxay noqotay macalinku wuxuu sharxoyaa casharada maasha allah in fahmaa rajeeyaa next day markan kale muxuu leeyahay we look at the blackboard waxaan fiirinaa sabuuradda baa la dhahay we look at the blackboard waxaan fiirinaa sabuuradda laakiin intaan sharaxan kor waxaan soo qaadanay looks for haddana waxaan noo taala look at labadaas ku kala sharax markaa aragtid looks for look haddii for raacdo raadin waa search ama waa wax la raadinayo waa haddii mar look at ay raacdana maxaa waaye fiiritaankii wixii la fiirinayo waa iska ilaali marka waxaan ku dhahay haddii look mar raacdo for search oo kale waa haddii mar at raacdana waxaa waaye fiirintii waa look at okay marka ina fahmiyaa rajeynaa waxaan la marka we look at the blackboard waxaan fiirinaa sabuuradda aan u bedelna tenniska hadda ku jirno
aan soo fahamnay ee hadda fahmayno af Soomaali aan u bedelno maxaa leenahay asalka wuxuu ahaa waxaan fiirinaa sabuuradda maalin kasta maalin kasta way qarsan tahay okay aan u bedelna tenniska hadda ku jirno ee koowaad maxaa leenahay waxaan fiirinoonaa sabuuradda hadda fiiriya ol waxay ahayd waxaan fiirinaa sabuuradda maxaa u bedelnay waxaan fiirinoonaa sabuuradda laba hadal kala duwan waa mid maalin kasta fiirina midna haddaan fiirinoonaabo fiiri isku mid maan laba tennis ku darsan mid maalin kasta fiirinaa mid haddaan fiirinoonaa labadaas maxay kala yihiin kan maalin kasta la fiirinaa waa mid aan u socono waa oo waan baran doonaa kaas wuxuu ku shaqeeyay qaabka u shaqeeya aan baran doonaa midna maxaa waan soo fahnay wuxuu yahay waa wax hadda dhaco hadda aan fiirinoono waa right now waa English aan bedel maxaa asalka wuxuu ahaa we look at the blackboard وبدل جانج انت بريسك تين تونس بدل حين غني we are mesh tal marka hadda waa marka we are mesh tal maxaa ogsoor maxaa ku dhigayna ilaa maxaa ku dhahay hadduu jamac yahay hadda maxaa waay kan pronoun waa hadduu jamac yahay maxaa la siinaa ara la siinaa soo ma iska fiir maxaa leena marka we jamac waa annaga maxaa leena marka we are look maxaa ku darana ing bravo we are looking at the blackboard waxaan fiirinoonaa sabuuradda iyo waxaan fiirinaa sabuuradda ku celi marka maxaa ku dhahay we are looking at the blackboard waxaan fiirinoonaa sabuuradda asal korna muxuu ah we look at the blackboard waxaan fiirinaa sabuuradda next kan kala gudub ugu dambeeyo they test the exam they ayagu test waxay tijaabiyaan the exam baa tiri examku bay tijaabiyaan baa maxaa waay maalin kasta tijaabiyaan marka aan u bedelno tenniskeena ah hadda aan ku jirno aan fahmayno waxaa leenahay marka iyagu waxay tijaabinooyin examka fiiriya asalka wuxuu ah ayagu waxay tijaabiyaan imtixaanka ama examka maxaa dhahnay marka ayagu waxay tijaabinooyin imtixaanka alfaam soo ma ayagu markasta way tijaabiyaan imtixaanka ayagu hadda tijaabinooyin imtixaanka okay ingiliishka aan bedel maxaa leenahay asalka wuxuu ah they test the exam aan ka dhigna present continuous maxay noqonay day maxaa waay jamac waa maxaa waay dad badan laga hadlo waa day dad badan meel jooga laga hadlo ama fasal ku jiro galaas fadhiya laga hadlo maxaa la marka maxaa la siiyaa bravo jamac waa maxay noqonay marka they are test feebatan maxaa lagu daraa plus ing maxay noqonay marka they are testing the exam ayagu waxay tijaabinooyin imtixaanka ama examka intaas waa marka maxay tahay waa qodobada ama examplada aan ugu talagalay ama exercisyada aan ugu talagalay inaan u bedelno tenniska koowaad aan ku xalino waxaan sidoo kale baran doonaa iyadoo af Soomaali ah af Soomaali like hadda si fahmoona laakiin af Soomaali fara badan oo waaweyn oo fara badan dheer ah oo badan aan keenayno insha Allah oo laakiin u bedelino af Soomaali oo tenniska koowaad aan keeni doonaa marka cashirkeena halkaas ayuu ku eg yahay fadlan janaalku waa janaal cusub haddii uu yahay markii koowaad ee janaalkeena aad daawato ama aad aragto cashirada dhex taala fadlan subscribe-ka iyo like iyo share-ka intaba ha ka qarsan hana ka keedsan fadlan dhag noogu sii si aan ugu farxno adigna aad u hesho cashiro ku xiisa geliya sidaan oo kale